Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Sela 24. Maanta waxaan idin haynaa faalla gacbo aan ku eegayno dhawaaqa dhilada leh ee ka soo kordhay Ukraine. Ruushka oo sheegay inuu 24 saacadood gudahood ku qabsan doono Ukraine. Waa sida laga soo xigtay la taliyaha arrimaha nabadgelyada ee Mareykanka. Wadamada Yurubna dhammaantood warkaa way ansixiyeen. laakiin su-aashu waxay tahay haddii uu dagaalku sidaa fudud ku bilaabmo sidee buu ku dhammaan doonaa goodinta ruushka ee ah inuu wadamada yurub ka jari doonaa gaasta saameyn intee leeg bay ku yeelan doontaa qaaradda yurub maraykanku ma soo gaadhsiin doonaa gaasta uu leeyahay waxaan u keenayaa wadamada yurub xilligan iyaguna ma taageeri doonaan dagaalka ruushka iyo Ukraine iyo Mareykanka dhanka ah dagaalkaasi muddo intee leeg buu soconayaa ciidamada Ukraine waa imisa ciidamada Ruushka waa imisa labada quwadood haddii ay isku dhacaan arrinku ma wuxuu ku soo gabagaboobi doonaa Ukraine qaataan wadan dowladda Mareykanku Ruushka waxay u sheegtay inuu cawaaqib xumo kala kulmi doono haddii uu ku dhaqaaqo tallaabo military oo ka dhan ah wadanka Ukraine ruushku 10 sannadood ugu dambeeyay wuxuu ka shaqeynayay siduu mar uun Ukraine ugu soo celin lahaa gacanta ruushka maadaama ay ka tirsanaan jirtay Ukraine wadamadii Soviet ee 1991 burburay xilligaas ay dowladnimadeeda ku dhawaaqday dowladda Ukraine ruushku wuxuu u arkayay inay khatar ku tahay dadka ruushkuna waxay sheegayaan in dadka ku nool Ukraine ay yihiin dad walaalahooda oo isku af ah oo isku dhaqan ah oo aanay sina u kala maarmin dowladda ruushka Mareykanka waxay ku eedeynaysaa intaa in ka badan inaad noo soo dhaafi karin maadaama in badan kunuuniga noo deganayd laakiin labada dowladood